أهلا بكر حسن قليت قدوميها دقمة حريرة إمك ما دام هذا قدومية عصب واختياره قابلنا حتى تشوقا ديجان كاسي حريرة بالحالة تجود أبني. أيه مركز الحالة اللي يقول لها قيمية. رنتي اللي بتقولي هذا عاد بحسلان تاعي عاد بودقن تاعي. لا كان دمحي برد حسوك لقاري. سيدي هو برنامج في وحلول لمي نوتي سيدي قاب كده كان كحلول لمي. مكتي سيدي لو كلا قادن لها وريلي مدحيدين والله بالعبي مركا قبل waxay soo dhamaanaysaa insha Allah bisha labaad bartamaheeda ay soo gabagabeysaa marka arintii dhacday waxa lagu dhameeyay nabadgeliyo qaab dhaqameed intiina jumhuriyadda Soomaaliland la mugtay xukuumadda waxay soo dirtay qola guurtidii caynkaas ahayd baa markaa oday dhaqameedii u qarqaaday sidii baa markaa barnaamijkaasi qaab dhaqameed loogu dhamaystay nabadgelyada hadda aad ayay u fiican tahay dhinaca waxbarashada markaan qiimeeyo runtii way fiican tahay waxaa ka furan labada dugsi oo dugsi primary iyo dugsiga sare labada way ka furan yihiin waxbarashadana meel fiican ay maraysaa dhinaca caafimaadka markaan u leexdo caafimaadka hadda kor waxaa ka furan hal MCH marka MCH kaasi runtii ummadda kuma kaaftoomin marka arinta caynkaas ummadda kadib markii dadka deegaanka ay sameeyeen abaabul ballaaran ay sameeyeen walaalahooda runtii ku dhaqan qurba joogtuna ay gacan buuxda siiyeen waxa lagu guuleystay la dhisay isbitaal ballaaran oo markii dadweynuhu ay baahidii keentay abaabul ballaaran sameeyeen iyagoo la kaashanaya dadweynahooda deegaan qurba joogta mugtay diaspora people arinta caynkaasina waxa lagu guuleystay in la dhamaystiro hadda isbitaal ballaaran oo degmada deegaanka xaradooda lama ku filan kaasoo markaa runtii xitaa ambalaaskiisii qalabkiisii wata dhawaanna waxaa bisha maalintii jimcaha aynu soo dhaafnay bisha 17keedii jimcihii soo dhaafnay waxaa halkaasi furay wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland حاجات بس السلامة الحاجات توسية halkaas aan ku soo dhaweynay furitaankiina halkaas aan ka bilownay isla markaa wixii codsi ahaa barnaamijka ku saabsan isbitaalkana waan u soo gudbinay ay ka mid yihiin mesela dhamaystirka deyrkii isbitaalka iyo qalabaynta wixii ka dhinaa iyo shaqaalihii laftoodii intii codsiyeen barnaamijkaas ugu soo jeedinayna runtii wuu aqbalay cid kasta ama wasaaraddan hadda boolo oo wasaaradda hadda warsho ama hay'adaha kale saafalka ee barnaamijka caafimaadka shaqeeya la kaashado marka arintaasina codsigeeyay si fiican buu looga aqbalay gudoomiye waxaad sheegtay in jaaliyada qurba jooga ee deegaanku ay dhistay dhakhtarka iyo qalabkiisa ambalaaskaba marka ma jaaliyada ama dadka beesha ayaa gacanta ku hayn doonta isbitaalka dhakhtarka mise xagga wasaaradda ayaa maamulkeegu lagu wareejinayaa laga bilaabo maalinta muxuu ahaayeen wasiirka caafimaadka aan ku soo dhaweynay isbitaalka la furay waxaan ku wareejinay wasaaradda caafimaadka marka wasaaradda caafimaadka ayaa maamulkiisa iyo hawshiisa oo dhan la wareegi doonta haday qalabeen tahay haday shaqaalaha tahay iyo haday qalabeen tahay iyo dhismihii deyrkii hadhanaaba degmada xariga waa degmo aad u ballaaran dhaqdhaqaaqa ganacsi waa mid noociyay runtii dhaqdhaqaaqa ganacsi horta waa ganacsigan caadiga ah ee mugtay dalkeena intiisa badan ka socda oo suuq badan Soomaalidu dukaamadaas iyo mugtay barnaamijka kale ee mashtariga dalkii dhinaca xadkuna uu dhow yahay dalka Itoobiya marka barnaamijkii uu dhaarkayay mugtay qalabida caynkaas islaafsigiisii iyo mashtariga guud caadiga ah ee normalka ah ugu ku salaysan inta badan wax taas dhaafsan oo meesha ciidamada oo kale inta badan warka lagu soo gaaray dadka deegaanka ku sugan xariira degmada xariira waxa inta badan ka cawdaan ciidamada booliska baaritaano adag sameeya habeenkii iyo ciidanka Itoobiya oo mar walba soo dhaxgala gudaha magaalada arrimahaas maxaa ugu sheegay wallahi barnaamijkaasi hadda ka hor buu ahaa mar ay qodadii mugtay oo laftii mar ay soo gali jirtay meesha iyo barnaamijyada caynkaas ciidanka Itoobiyaanku aad u soo dhaxgalay dhulka wartaasi muddo hore ayay ahayd laakiin hadda kullay dhibaato fara badan oo ku saabsan dhinaca amniga oo caafimaad dhinaca ciidamada ku saabsan oo hadda ka dhacday